كجرتنا مدي كران والله سمية شاب بشير سوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مركب كواد إلهي سبحانه وتعالى بأنه مهد علينا نو سهلي إن كل كان يسوي معنا شرفت بدن قيمة بدن أن كحسينه نبي محمد عليه الصلاة والسلام. أدين كان أوصى حاضرتين رجيستان وحن كلهم مهد علينا يا دمان مدحضة علماء خيارته عد والبا ماموس كذا يشرفت هذا كسلام انتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركين تلاقى صوته waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa u joogno xafladan qiimaha badan ee baalfurka buugga sooyaalka subanaha alayhi salaatu wasalaam. waxaan rabay marka kelmadeyda inaan aad ugu soo ka bilaabo magaca xagee ka yimid sooyaalka subanaha dhacdooyin iyo dhambaalo. markaan ka fikiraynay magaca inaan sameeyno dhacdooyin iyo dhambaalo waa af carabi aan soo turjumnay maskax af Soomaali ah kama imaanin waxayna ka timid alwaqaa'i wal ahdath oo aan isdhahaynay tafsiirka macnaha ugu dhow bay noqon doontaa oo ah siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay leedahay dhacdooyin waxayna kale leedahay waxyaabo fariimo ah oo rasaa'il ah oo waqaacidaas ay xambaarsan tahay ahdaathaasna ay xambaarsan tahay. marka rasaa'isha iyo waqaacidaas ay leedahay waxaa midaas ay ahayd midda labaad af Soomaaliga wuxuu hodan ku yahay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam magac u leeyahay suubane la yiraahdo. suubanuhuna waa magac sidiisaba u fiican wax kasta suubsan wax kasta ka suubsan wax kasta u suubsan sida ugu fiicanna ugu suubsan. marka ereygaas qofkii af Soomaaliga ku soo daray xasanaad badan iyo ajir badan baa u socda. waxaan kaloo hadana raadinay asiira maxaa af Soomaali ugu dhow taariikhdiisa miya taariikh nololeedkiisa miya ruuxantii waqti badan ay naga qaadatay kelmadda asiira maxaa af Soomaali ugu dhawaan karo. markii dambe un baa Ilaahay noo sahlay inaan dhahno sooyaal magacaas inaan u helo. qaybta labaad waxa waaye maxaa kalifay inaan buugaan Fahd Yaasiin uu qoro. waa su'aal aad ii weydiiyo marar fara badan la igu soo qaado. marka laba jawaabood aan ka bixiyaa. jawaabta koowaad waxa waaye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loo siman yahay. marka qof gaar u leh oo qolo gaar u leh ma jirto. culimadu ma dhihi karto annaga nabiga dadka intiisa kale ka xigna qolo kale. marka horta siyaasiyiinta laftigooda xaq bay ku leeyihiin xaqna waa lagu leeyahay. midda labaadna waxa waaye cabdiraxmaan baa jug igu siiyay hadda wasiir cabdiraxmaan aniga si kale aan u soo waday baagamuudo qasab ahaan galay. marka baagamuudadii qasabka ahayd aan uga faa'iidaystay. midda laba saddexaad